Robert Prevost wuxuu noqonayaa Bobekii ugu horeeyay ee Maraykan ah, ogow wax walba oo ku saabsan Bobeka cusub Leohif. Bobe Leohif Robert Prevost. Kaniisadda Katoliga waxay goobjoog u noqotay isbeddel taariikhi ah oo lagu doortay Robert Prevost oo ah hogaamiye cusub. Prevost, oo hadda loo yaqaan Bobe Leohif, ayaa calaamad u ah taariikh muhiim ah oo ah Maraykankii ugu horeeyay ee qaata baba'i, isagoo noqday hogaamiyihii 267 ee bulshada Katoliga adduunka. Wuxuu ku dhashay Chicago 1955. Bobe Leohif kor u kaca xafiiska ugu sarreeya ee kaniisadda ayaa calaamad u ah cutub cusub oo ka tarjumaysa labadaba dhaxalkiisa qoto dheer ee Ameerika iyo ballanqaadkiisa joogtada ah ee howlgalka caalamiga ah ee kaniisadda Katoliga. 9 sano jir, magacaabistiisu waxay muujinaysaa isku dhafka qiyamka dhaqameed iyo hoggaanka horumarka, soo jiidashada dareenka Catholics adduunka oo dhan. Socdaalkiisii uu ku tagay boqornimada oo uu qaabeeyay shaqo adeegeed oo ballaadhan iyo khibrad sharci ayaa hoosta ka xariiqday khibradaha kala duwan ee u diyaariyey isaga doorkan muhiimka ah. Robert Prevost nolosha hore iyo asalka. Robert Prevost wuxuu ku dhashay 1955 magaalada Chicago, Illinois, oo ah magaalo caan ku ah bulshada firfircoon ee Katoliga. Ku soo barbaaray Archdiocese-ka ugu weyn waqooyiga Ameerika, Prevost wuxuu ku dhex milmay iimaanka laga soo bilaabo da'yar. Waxbarashadiisa iyo barbaarintiisa ruuxiga ah ayaa u gogol xaarayay doorkiisa mustaqbalka ee kaniisadda dhexdeeda. Safarka Prevost ee hogaaminta diinta wuxuu ku bilowday sida ay uga goon tahay inuu u adeego bulshadiisa maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba, isaga oo dhidibada u aasaya mustaqbalkiisa hogaamiyaha kaniisadda Katoliga, xiriirka uu la leeyahay Peru, halkaas oo uu sannado badan ku qaatay adeegayaal ahaan iyo markii dambe sida hogaamiyaha kiniisaddu, waxay muujinaysaa baaxadda caalamiga ah ee wasaaraddiisa. Aqoonsigan laba geesoodka ah, maadaama labadaba Maraykan iyo shakhsi si qoto dheer ugu howlan nolosha kiniisadda Latiin America, ayaa door muhiim ah ka qaatay qaabaynta aragtidiisa babal. Sida xididada Robert Prevost ee Maraykanka iyo Latiin America u qaabeeyeen baba'i. Ka hor inta uusan u kicin boqornimada, Robert Prevost wuxuu qabtay 2 door oo caan ah oo qaabeeyay hoggaankiisa gudaha kaniisadda. Waxa uu u shaqeeyay sidii madaxa Archdiocese-ka Chicago, halkaas oo uu u huray daryeelka xoolo dhaqatada uu kasbaday ixtiraam ka dhex jira wadaadada iyo wadaadada. Isaga oo ah hogaamiyaha Archdiocese-ka ugu weyn ee waqooyiga Ameerika, Prevost wuxuu muujiyey sida ay uga goon tahay kobcinta ka qaybgalka bulshada iyo hagidda nolosha ruuxiga ah ee malaayiin. 2 saamaynta Prevost ayaa ballaartay markii uu door ka qaatay gudaha Vatican, isaga oo u adeegaya guddiga Pontifical ee Latiin America. Mowqifkani waxa uu u sahashay inuu la xidhiidho bulshooyinka Latiin America oo uu wax ka qabto caqabadaha xoolo dhaqatada ee ay kaniisadda gobolkaas kala kulantay. Xiriirkii dhawaa ee uu la yeeshay Pope Francis, oo ay weheliso waayo aragnimadiisa ku aadan wax ka qabashada arrimaha kaniisadaha ee kakan, waxay u calaamadisay inuu yahay hogaamiye leh aragtiyo maxalli iyo caalami labadaba. Kor u kaca lama filaanka ah ee Bobe Leohif, sida Robert Prevost uu u soo baxay tartan babal ah. Inkasta oo uu shahaadooyinkiisa haysto, doorashada Prevost ee baadari ahaan ayaa la yaab ku noqotay qaar badan oo ka mid ah wareegyada Vaticanka. Bishii Febraayo 2025, waxaa la gaarsiiyey darajada Cardinal Bishop, taasoo kordhisay muuqaalkiisa iyo saamayntiisa bilo ka hor shirweynaha babal. Inkasta oo loo arko inuu yahay tartan aamusan, sumcaddiisa inuu yahay hogaamiye feker leh oo dheelitiran ayaa kasbaday taageero weyn marxaladihii ugu dambeeyey ee doorashada. Xiriirka dhow ee Prevost ee Pope Francis ayaa door muhiim ah ka ciyaaray doorashadiisa. Isaga oo ah musharaxa Bergoglian, waxaa loo arkayay sii wadida hogaaminta xoolo dhaqatada iyo beesha ee ku sifoobay baadariga Francis. Kor u kaciisa lama filaanka ah ayaa hoosta ka xariiqaya dabeecadda firfircoon ee geedi socodka Onlafe, halkaas oo taageerada tirooyinka muhiimka ah ee kaniisaddu ay si degdeg ah u beddeli karaan muuqaalka. Sidee Peru u qaabaysay hogaaminta Bobe Leohif? Muddada qeexan ee xirfadda Prevost waxay ahayd shaqadiisa adeegayaasha muddada dheer ee Peru. Ku dhowaad 5 sano oo uu dalka joogay, waxa uu xidhiidh qoto dheer la yeeshay bulshooyinka deegaanka. 2015, waxaa loo magacaabay hogaamiyaha kiniisadda Tirlayo, halkaas oo qaabkiisu uu xooga saaray inuu ku sii jiro kuwa aaminka ah. Prevost falsafada hogaaminta, oo udub dhexaad u ah adeega iyo u dhowaanshaha dadka, wuxuu ahaa mid cad intii uu joogay Peru. Waraysi 2023 ah oo uu siiyey Vatican News, wuxuu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay hogaamiyaasha in la heli karo oo si firfircoon uga qayb qaataan nolosha bulshada. Ballanqaadkan ku aadan daryeelka xoolo dhaqatada iyo rabitaankiisa inuu wax ka qabto arrimaha maxalliga ah ayaa ka dhigay qof ixtiraam leh oo ka mid ah wadaadada Peruvian iyo cibaadada. Bobe Leohif, dheelitirka caqiidada iyo daryeelka xoolo dhaqatada. Marka laga soo tago shaqadiisa xoolo dhaqatada, Prevost waxaa si weyn loogu qadariyaa khibradiisa sharciga canon oo ah hay'adda sharciyada xukuma kaniisadda Katoliga.
Fahamkiisa qoto dheer ee qaabkan sharciga ah ayaa ahaa qalab kor u kaca, isaga oo soo jiidanaya xubno dhaqameed badan oo faticanka ah kuwaas oo qiimeeya u hoggaansanaanta mabaadida kiniisadda. Habka isku dheelitiran ee Prevost iskudhafka aqoonta sharciga ah ee daryeelka xoolo dhaqatada wuxuu gacan ka geystay xoojinta sumcaddiisa musharaxa awood u leh inuu mideeyo xaqiiqooyinka kala duwan. Kiniisadda dhexdeeda, awoodiisa sharci ayaa si gaar ah muhiim ugu ah ilaalinta daacadnimada caqiidada kiniisadda isagoo sidoo kale wax ka qabanaya caqabadaha casriga ah. Muhiimadda magaca Leohif. Doorashada magaca Leohif ee boqornimadiisa waxay xambaarsan tahay dhawaaq taariikhi ah. Magaca Leo ayaa lala xiriiriyey baadari xooggan, dib u habeyn, gaar ahaan Bobe Leohi, oo loo yaqaan NLCs cadaaladda bulshada iyo xuquuqda shaqaalaha. Qaadashada magacan Prevost waxay calaamad u tahay ballanqaad ah in lagu hogaamiyo xoog iyada oo sidoo kale wax ka qabanaysa walaacyada bulsheed ee casriga ah. Dhaxalka Ameerika ee Leohif oo ay weheliso waayo aragnimadiisa xoolo dhaqatada Peruvian waxay muujinaysaa aragti caalami ah oo saameyn ku yeelan karta habka kiniisadda ee caqabadaha casriga ah, laga bilaabo arrimaha cadaaladda bulshada si loo ilaaliyo qiyamka dhaqameed ee adduunka sii kordhaya. Saamaynta iyo rajada mustaqbalka. Magacaabida Robert Prevost ee Bobe Leohif waxay calaamad u tahay waqti muhiim u ah kiniisadda Katoliga. Sida baadari ugu horeeya ee Maraykanka, hoggaankiisa ayaa la filayaa inuu soo afjaro kala qaybsanaanta dhaqanka iyo gobolka, kobcinta isdhexgalka weyn ee bulshada Katoliga ee caalamiga ah. Doorarkiisii hore oo ku saabsan hoggaanka RDOS ee Tiago shaqadiisa adeegayaasha ee Latin America, wuxuu u qalabeeyaa inuu wax ka qabto labadaba baahiyaha ruuxiga ah ee waddankiisa hooyo iyo kiniisadda ballaaran. Marka uu bilaabo boqornimadiisa, goobjoogayaashu waxay daawan doonaan sida asalkiisa gaarka ah u qaabeeyo qaab hogaamintiisa iyo hindisayaasha uu mudnaanta siinayo.